marka tawbad keeno ilaahay u tawbad keen tabaaraka wa tacaala arrimaha aan sheegnay inuu ku dadaal insha Allah wabillahi tawfiiq su'aaluhu sheekh aad bay u badan yihiin qaarba su'aalo maxkamada u baahan ragii baa iga maqan iyo 4 sano ima imaanin iyo marka u badan marka maxaad kula talinaysaa gabdhaha ragooda uu ka maqan yahay oo aan la soo xiriirin muddo ka maqnaayeen wax biil iyo sidoo kalena aan ku haysan qaar badan baa waxyaabahaas ka cabanay su'aashaasi aad bay muhiim iigu tahay sababta waxa weeye waa masaa'isha la igu dhibay ana waxban ka qaban kar dumar haweeney baa waxay leedahay sheekh waxaan rabaa inaan ku arko maxaa jiraan leeyahay hadii wixii wax fudud ba iska yahay maya inaan ku arkaan rabo masaa'il ana waxba ka qaban karin baa jiray maadadu ii sheegtay waxaad iga rabto maya ilaa aan kula fadhiisto waa fadhigii markii aan u qabtana waxay leedahay wadaadkaygii anigii baa muddo kala maqan kan weeye biil la ima soo dirin halkana wax marayaan hadday telefoonka igu sheegi lahaydna waxaan dhihi lahaaba aniga hawlaha wax kama qabtay meeshii wax ka qaban lahayd baan u sheegi lahaa haddana waan idin sheegi qadaayaadka khusuumaadka reeraha is haysta ah saddex mid kamid ku xalliya reero xuquuq ku kala maqay ama haweeneydii baa naashizowday oo balaaya ka socota ama wadaadkii baa xil noqday xilma kas noqdayo xilkiisa iyo waajibaadkiisa gudan la khilaafiyada guriga midda koobaad iyo tilaabada koobaad in aad isku daydaan bal idinka dhexdiina inaad wax xallisataan isu tanaasushaan la isu sabro haddii taas ay arrintu ka gudubto tilaabada xigta ay waxa weeye in dadka ehelka ehed ka dhalateen arrinta in loo gacan geliyo fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahuma gacma geli jira kor looma dhaqay dhahan Soomaalidu arrinta gurigu waxa la rabaa inay mar walba qarsoontahay hooseyso banaanka in loo saaro ma hadday dadkii ehelka ahaa waxba arrinta ka qaban kari waayaan keeskaasi waa kees marka qada iyo qaali u baahan wadaadada masaajida imaamiyada ka iyo culimada ha kula wareegaysanina waxba kama qaban karaan kees xaqiijin u baahan weeye markii la xaqiijiyo kadibna awood qadaa bay u baahan tahay awoodka qaadinimana waxa iska leh ninka maxkamadda qadaaga fadhiya waa jiraan wadaadada meelahan duurka ku jiro wax kala fasaqa oo waraaq been intuu dadka u qoro xogaa 5,000 iyo 4,000 ka qaato waa jiraan kuwaas laakiin waxba kama jiro waxna ma fasaqi karaan waxna ma kala diri karaan awoodana ma ilaha ilaahu mu imaam masjid ahaado maadaama beledku qaali uu leeyahay hawsha qaali ba iska leh maxkamadaha qadaaga ee muslimiinta markaad u geyn kuwaas aad u geynaysaan wixii xaajadiisa u jirtay baad u sheegaysaan cadayntii baad geynaysaan ayaga barnaamijka xaqiijinayo dabagalaya kadibna shariicadu iyagay awood siinaysa inay go'aan ka qaataan hadday noqoto fasaq hadday noqoto waqti in la isku wado shariicadu iyagay go'aan siinaysa laakiin cid ka sokayso oo go'aan iska qaadan karta ma jirto waxba markaa ku lugayna meelaha kala ku lugayna saddexda tilaabo hal lagu xalliyo khilaafaadka guryaha wajazaakumullahu khayran jazakallahu khayran su'aashan baan ugu dambaysiinayna insha Allah sheekhan iska fasaxno gabadh baa waxay leedahay daris aday ii keenaan xoolo mawlidka loo qalay ama arrimo kale xus iyo wax loo qalay ma cuni karaa hilibkaas la ii keenay mawlidku waa bidco mawlidku waa waxaan diinta ka tirsanayn xuskuna diinta kama tirsana tacsiyaduna diinta kama tirsana waa qaabkay Soomaalidu u dhigaan isu imaadka baan ka wada tacsiye sharciga jirta munaasabaadka noocaas oo kala wixii lagu qaliyo cuntadii lagu sameeyo in la cunana ma aha in laga qayb qaatana ma dadka sameynayana waa inay ogaadaan inay khaldan yihiin ummadda inteeda kalena waa inayna ugu kaalmaynin watacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala alithmi walcudwaan ithmi weeye munaasabaadkan bidcada ah shariicada aan ka mid ahayn xoolihii ummadda lagu baabi'inayo xoolahan khalad baa lagu qalayaa xoolahan khalad baa lagu cunayaa xoolahan khalad baa lagu gowracayaa munaasabada dhan waa wada bidco waa idaacatul maal xoolo la dayacayo xoolo wajigeedii sharciga ahaa waji aan ahayn lagu bixinayo saas daraadeed ha ka qayb gelina waxna ha ku darsanina dadkana ka waaniya haddii hilibkoodii iyo raashinkooda la idin keenana u sheego waxaad tidhaahdaan waa bidce
idinkuna iska daaya igalana noqodhe qaadan bal ku baraaruji sababtaad u diidaa ka xishoonin ha ka xishoonin waxa tiraahdaa waxan aad wado sharaacada waa khilaafsan yihiin annagu